qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Togdheer ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta Soomaaliland inay joojiyaan ololaha doorashada ayna ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliland. Odayaashan oo baaqooda ku wajahnaa saddexda xusbi qaran ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa 11 gobol oo Soomaaliland ah ayay ka jirtaa abaar aan hore loo arag xoolihiina haatan ay dhamaadeen. waxaa loo baahan yahay waxa weeye dadka in la ururiyo oo meelo cid walba meesha dhul ku haboon oo qorshaysan loo sameeyo ayaa loo baahan yahay. waxa aan cid walba ugu baaqaynaa inay ka geysato taageero iyo waxtar ay ummadda u geysato. waxa la sheegayaa doorashooyinka asxaabta waxaanu leenahay waxa wax laga xishoodo ah oo aan u aragnaa cid maanta tiraahdo doorasho ha dhacdo oo ha ku dhacdo bisha soo socotay Maarch ha dhacdo tiraahdo aan u aragnaa cid maalin ay qaraadhahay waqti doonaysa inay cuntaan u aragnaa. sababtoo waxa weeye meydkii dadka iyo xoolaha waqtigoodii bay isla yaala wax ururiyana maanta waa loo baahan yahay. xambaaq caalamiga uga jeedinaya saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda iyo shicib weynaha waayo maanta maalin doorasho galan ma aha dadkeenii baa baqtay iyo xooli waa la daayayada war dadka wixii lagu badbaadin lahaa ninka maanta gaariga 100 kuna wata inuu uga iibiyaaba waajib hayday waxaan doonayaa doorasho waqti maanta aynu doorasho galaan ma jirto dadkeena ma badbaadsana. waxaanu maqlaynaa ama dadku sheegaya doorasho la qabanaya oo la isku haysta war nimanka doorashada doonaya ma niman waalanba war maciidaad idin codaynaysa ninka muwaadinka ee dadkan ka raba maanta inay rajo ka qabo dadka waa ogtiin xaaladiisa iyo halku marayo. wadanka dhib weyn baa ka jira dadka reer Soomaaliland 80% xoolaha nool bay noloshooda si toos ah ugu xidhnay 20% soo hadhayna si dadban ayay ugu xidhnay noloshooda xoolaha nool. dadkii reer Soomaaliland xoolihii ay dhaqan jireen nooc ay u ahaataba imaka 5% ma waxa ka nool 5% taan nool la wax rajo ah oo laga qaba ma jiraan. xilliga ay ku jiraan waa January xilligii roobka Ilaahay shubi jiray xitaa hadii uu doo waa 3 bilood wixii ka dambeeya. xaaladda deer raxmadda Ilaahay way furanto Ilaahay uu keeni karaa laakiin xaaladda saadaasha ah ee inaga imaka aynu saadaalinayna waxa weeye in muddo 3 bilooda aan wax iri daaynin Ilaahay raxmadiisa uu keeni karaa oo xilli abaara lagu jiro 2 sanadood hore oo abaarana gobolada bariga Soomaaliland waa lagu jiray abaar baa lagu jiray. waxa weeye abaarta tabaabulshaheeda iyo hawlgalkeeda iyo mar haday dunyadii dhamaatay dadka loo taliyo ayaa maanta loo baahan yahay. Maxamed Saciid Gaxnug RTN Burco.